madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ka hadlay xiriirka ay Soomaaliland la wadaagaan aroortii waxa diinteena ama maxaan ku raacay dhaqankeena kowka ah labada guriga jaarka inuu qofka kale soo bariidiyo yani waajibad ba ka saaran marka nabadgelyada Soomaaliland waa nabadgelyada Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar waxa uu ka waramay iskaashiga xagga nabadgelyada ee ganacsiga Soomaaliland iyo Itoobiya Ahmed Saciid Cige waxa uu markii hore weydiiyay madaxweynaha iskaashiga nabadgelyada dowlad deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya iyo Soomaaliland iskaashiga horta waxa weeyaan dowladda Itoobiya qorsheeda koobaad dadka jaarka in si nabada oo cadaalada oo la xilana ay kula noolaato waxa Soomaaliland waxaan dhihi karaa labada guri ee waxa weeyaan jaarka aroortii waxa diinteena ama maxaan ku raacay dhaqankeena kowka ah labada guriga jaarka inuu qofka kale soo bariidiyo yani waajibad ba ka saaran marka nabadgelyada Soomaaliland waa nabadgelyada Itoobiya aan dhihi karaa nabadgelyada shacabka deegaanka Soomaalida Itoobiya waa nabadgelyada shacabka Soomaaliland weeyaan isku caadana weeyna waxa weeyaan maxaan ku raacay cadawga argagixisadana isku siba ma taqaanaa dagaalkiisa iska kaashada deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Itoobiya waxa dan u baa Soomaaliland dan oo ah micnaheedu tahay nabadgelyo horumar iyo maamul suuban taas ma taqaanaa muhiimadeedu ay tahay madaxweyne waxa jirtay waad ogtahay idaacada BBC dhowr jeer bay sii deysay in shaqaqooyin ay ka dhaceen gaar ahaan xadkan Boormaya u dhaxeeya iyo gaar ahaan dhinaca Itoobiya arintaasi bal ka waran idinka la fahantiin marka qaar xagga uu soo galay ma la soo afjaray arintaasi waxa way horta markaan xaqiiqan ka hadalno dawladda Itoobiya iyo deegaanka Soomaalida cadow Soomaaliland marraba deegaanka Soomaalida Itoobiya ama Itoobiya meel inuu joogo ma ogolin mana joogayo hadduu hubata iyo hadduuna wadaninba waxa weeyaan nin sharci darro ah oo waxa weeye Soomaaliland ka soo gudbay inuu deegaanka Soomaalida Itoobiya inuu joogin taas waa polisiga arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya anaguna taanfulino waxa weeyaan waa wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya polisigeeda weeye maxaan ku rahay wixii arrimaha dibadda noo qabilsan laakiin ka deegaan ahaan waxaan cadeynaynaa in shakhsi ama group midna inaan ogolaanaynin inuu waxa weeyaan deegaanka Soomaalida Itoobiya uu joogo horeyna waa taa media waan uga sheegnay haddana waxaan ku raawaan sheegaynaa xagga ganacsiga ka waran wada arkaysa wajaalo kale ayaa tusaale ah ganacsi iska goojeeno gawaadhida caadi khaydka yara ku xidhan xuduudda mooyee caadi la isaga gudbaayo ka waran in sideebad arintaas ku tilmaami kartaa ganacsiga waxa jira nidaam waxa weeyaan maxaan ku rahay ganacsiga oo sharci iyo xeer iyo nidaam uu leeyahay customka Itoobiya jira xeerka iyo nidaamka iyo customkaas weeyaan ganacsiga maxaan ku rahay xalaasha waxa uu naqaano ganacsiga waxa la dagaalamana waa kontrabanka Soomaaliland madaxdeeda ugu sareysay markii aan ku shirnay waxa weeyaan dirdhaba waxa la ka hadalay waxa ahaa in labada dhinac inay waxa weeyaan Soomaaliland iyo waxa weeyaan deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo guud ahaan dawladda federaalka nidaam ganacsigu inuu noqdo mid sharciga Itoobiya iyo sharciga Soomaaliland ku dabaqan inuu noqdo oo waxa weeyaan ganacsatada waxa weeyaan deegaanka Soomaalida ilaalisa markay u gudbiyso sharciga waxa weeyaan Soomaaliland ganacsatada Soomaaliland markay xaq u soo gudbiyeen inay ilaaliso sharciga customka Itoobiya marka ganacsigana waxa xiriirka waa kaas weeyaan fursadan haddaan ku siiyo madaxweyne Cabdi Cumar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya anigu aad ugu faraxsan wareysigii ugu horeeyay ka qaada uu yahay ama BBC bariyahan daba ay kula yeelato maxaad oranaysaa waxa kale oo aan leeyahay ummadda Soomaaliyeed maxaan ku u diraya hal cadow baa jiray cadowga in dhagooniya lagu eegto cadowgaas waa maxay waa cadowga waxa weeyaan waa nimankan maxaan ku al qoshash leeyahay in maxaan ku rahaa waxa weeyaan geeska Afrika Soomaalida ku nool isku aragtiin laga noqdo anigu al-shabaab uma aqaano ninka qoriga haysta kaliya madrasadaha fikirka al-shabaab dhiga laftoodu madrasadaha fikirka al-shabaab saacidaya dhiga laftoodu waa al-shabaab kuwaas maxaan ku rahaa geeska Afrika in laga baabiyo oo waxa weeyaan ninka qorigu markuu sido kaliya ama isqarxinayo waa shakhsi